Ra'iisul Wasaaraha magacaaban ee xukuumadda federaalka Soomaaliya Mudane Xamse Cabdi Barre waxa uu ku dhashay magaalada Kismaayo ee xarunta gobolka Jubbada Hoose 10kii bishii Oktoobar 1974. Mudane Xamse Cabdi Barre Ra'iisul Wasaaraha magacaaban ee xukuumadda federaalka Soomaaliya waxa uu ka baxay iskuulka Mujammac Mulqura isagoo shahaadada dugsiga sare ka qaatay. shahaadada heerka koobaad ee jaamacadda ayuu ka qaatay jaamacadda University of Science and Technology ee ku taala Yemen isagoo ka diyaariyay Business Administration. heerka labaad ee jaamacadda ayuu ku qaatay jaamacadda International Islamic University ee ku taala dalka Malaysia isagoo ka diyaariyay maamulka. Ra'iisul Wasaaraha magacaaban ee xukuumadda federaalka Soomaaliya Mudane Xamse Cabdi Barre waxa uu soo qabtay shaqooyin kala duwan isagoo leh khibrad aad u fog gaar ahaan dhinacyada waxbarashada iyo siyaasadda. waxa uu sanadkii 2001 ilaa 2003 la shaqeynayay hay'adda UAE Red Crescent isagoo jagooyin kala duwan ka soo qabtay. waxa uu sidoo kale khibradiisa shaqo ku soo qaatay jaamacadda International Islamic University ee dalka Malaysia. dalada ahliga ee waxbarashada ka shaqeysa ee FBNS ayuu ka soo noqday xogaayaha guud intii u dhaxaysay January 2003 ilaa May 2004. jaamacadda Muqdisho University ayuu ka soo shaqeeyay intii u dhaxaysay June 2004 ilaa January 2006 isagoo soo noqday ku-xigeenka diiwaan hayaha guud ee jaamacadda. sidoo kale macalin ayuu ka soo noqday jaamacadda Muqdisho. Mudane Xamse Cabdi Barre waxa uu ka mid yahay aasaasiyaasha jaamacadda Kismaayo University. waxa uu soo noqday agaasimaha arrimaha tacliinta ee jaamacadda Kismaayo University. xisbiga nabadda iyo horumarka ayuu ka soo noqday xogaayaha guud. dhinaca siyaasadda waxa uu ra'iisul wasaaraha magacaaban ee xukuumadda federaalka Soomaaliya Mudane Xamse Cabdi Barre soo qabtay xilal kala duwan. May 2014 ilaa Oktoobar 2014 waxa uu la taliye sare ka soo noqday wasaaradda waxbarashada hidaha iyo tacliinta sare ee xukuumadda federaalka Soomaaliya. sidoo kale la taliye ayuu ka noqday wasaaradda dastuurka xukuumadda federaalka Soomaaliya intii u dhaxaysay Oktoobar 2014 ilaa March 2019. ra'iisul wasaaraha magacaaban ee xukuumadda federaalka Soomaaliya sidoo kale waxa uu la taliyaal u soo noqday gudoomiyashii soo maray gobolka Banaadir intii u dhaxaysay December 2015 ilaa iyo hadda oo uu madaxweynaha Jamhuuriyadda Federaalka Soomaaliya u magacaabay ra'iisul wasaaraha xukuumadda federaalka Soomaaliya intii u dhaxaysay March 2019 ilaa September 2020. Mudane Xamse Cabdi Barre waxa uu gudoomiye ka ahaa guddiga madaxa bannaan ee xuduudaha iyo doorashooyinka ee Jubbaland. Mudane Xamse Cabdi Barre ayaa ka mid ah mudanayaasha xildhibaanada golaha shacabka ee ku soo baxay doorashooyinkii dalka ka dhacay isagoo hadda ka mid ah xildhibaanada golaha shacbiga. ra'iisul wasaaraha magacaaban ee xukuumadda federaalka Soomaaliya ayaa ku hadla luqadaha Carabiga iyo Ingiriishka. Mudane Xamse Cabdi Barre waxa uu noqonayaa ra'iisul wasaarihii 21aad ee uu dalku yeesho tan iyo markii uu xurnimada qaatay.